السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو ولا ليال مقعي عبد الله محمود. ما توحين قادنا إننا business cycle. بركة business cycle محوية. business cycle وإسبدلك وقت كودع economic activity. أما وحصو سارك good وطن كودع. isbedeladaasu waxay noqon karaan kuwo fiican iyo kuwo xun oo dhaqaalaha wadanku mar wuxuu samaynayaa booming buu samaynayaa mar hoos buu dhacayaa mar kor buu baxayaa marka phases kala duwan bay leeyahay business cycle markii dhaqaalaha wadanka la fiirinayo mar waxa weeye peak buu noqdaa waxa weeye xagga ugu sareysa buu gaaraa contraction waa markii waxa weeye dhaqaalihii uu hoos soo dhaco dhaqaalihii wadanka baa hoos soo dhacay mar oo waxa weeye oo wuxuu taabanayaa sagxadu taabanaya mar wuxuu sameynayaa expansion buu sameynayaa waxa weeye waa fidayaayo waxa weeye dhaqaalihii kor buu u kacaya kadib waxa uu gaarayaa peak waa xagga ugu sareysa buu gaarayaa marka dhaqaalihii intaas u dhaxaya mar waxa weeye sare u kaco iyo mar hoos u dhaco marka waxaan isticmaalaynaa afartan erey isticmaalaynaa waa kan sawirkii xagga waxa noo yaala waa real GDP sidoo kale halkan waqtigii isbedelka oo ku imaanayay baa iyana hoos noo taala markaan dhaqaaluhu waxa weeye hoos buu soo dhacay haddana kor buu u kacay oo soo kabasho buu sameeyay recovery buu sameeyay xagga ugu sareysu gaaray oo booming buu sameeyay xagga hoos kore goortu gaaray haddana hoos buu soo dhacay recession buu sameeyay marka oogada intuu ka yimaado hoos soo dhacayo waxa la laabaa contraction dhaqaalihii wadanka waa shiiqmanaya oo hoos buu dhacaya yani marka sagxada gaaro xaggan ugu hooseysa trafta uu gaaro buu haddana waxa weeye dhaqaalihii wadanka kor u kacaya wax soo saarkii wadanka marka wax soo saarkii wadanka uu kor u kacayna waxa la expansionary buu sameynayaa oo waxa weeye dhaqaalihii wadanka kor buu u socdaa waxa weeye waa sare buu u socdaa wax soo saarkii wadankaas baa siyaaday marka business cycle-ku intaas ku saabsan in dhaqaalaha wadan uu isbedbedeli karo oo mar waxa weeye kor u kici karo mar hoos u dhici karo waxyaalaha loo isticmaalo dhigida loo isticmaalana waxa weeye waa kuwan halkan ku aragnay mar uu booming sameynayo peak sare gaarayo haddana recession uu dhacayo waxa weeye dhaqaalihii hoos u dhac dhaqaale imaanayo uu gaarayo trafta meesha ugu hooseysa gaaraya haddana kor u kacayo oo waxa weeye dhaqaalihii kor aadayo marka dhaqaaluhu uu hoos u dhac ku yimaado waa contractionary baynu dhahaynaa sidoo kale marka hoos u dhacona waxa weeye waa expansionary kor u kaco waa expansionary marka muhiimadda casharkan waxa weeye inaad fahanto in dhaqaalaha waxa weeye wadan uu marna waxa weeye kor u kici karo mar hoos u dhici karo marka waxa laga rabaa adiga kaliya inaad ogaan karto waxyaalahan sababaya qofka dhaqaalayahanka waxa laga rabaa waxaan hadda macno weyn keeni mayso inaad barato kaliya booming iyo waxa weeye recession iyo trafo dhaqaalihii gaaray wax macno weyna ma macnaha waxa weeye waa inaad garan kartaa maxaa sababay inuu dhaqaalihii waxa weeye kor u kacayo booming sameynayo maxaa sababay waxa weeye in dhaqaalihii hoos u dhac ku yimi qaab noocee lagaga soo kaban karaa hoos u dhaca oo waxa weeye wax soo saarkii wadankii kor loogu qaadi karo waxyaalahaas oo dhan adoo ku bees gareynaya xaaladda wadanka ka jira maanta casharkii intaasan kusoo gabagabaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh